kulankan oo ay wada qaateen mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir hay'ad ka shaqeysa howlaha caafimaadka ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano baag oo fadhigeedu yahay dalka Sacuudi Carabiya iyo kan isbitaalka Daynile ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay sida loo horumari karo howlaha caafimaadka ee isbitaalka oo uu hayo bulshada Soomaaliyeed waxaana maamulka isbitaalka Daynile lagu wareejiyay hay'adda baag oo horumarin ku sameyn doonta isbitaalka Daynile kadib markii isbitaalkaas ay iskaga baxday hay'addii MSF oo muddo maamuli jirtay kulanka kadib ayaa mas'uuliyiintii ka socotay maamulka gobolka Banaadir iyo kan Daynile waxa ay u kurgaleen sida uu shaqeeyo isbitaalka Daynile iyagoona kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalkaas oo xilligaas ay jiifeen bukaano waxaana warbixino ku aadan sida uu shaqeeyo isbitaalka ay ka dhageysteen maamulka isbitaalka Daynile ee magaalada Muqdisho Dr. Ahmed Awees Ahmed oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda baag oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in hay'addu ay ugu horeen si gaar ah ugu shaqeyn doonto horumarinta qaybta hooyada iyo dhalaanka ee isbitaalka Daynile horta dabcan waxaan lagu wareejiyay isbitaal fiican oo aad alaabtiisu dhameystiran tahay shaqaalooda ay tababaran yihiin wax kasta ay fiican yihiin kaliya waxay u baahnayeen in la kaalmeeyo la socodsiiyo shaqada u socoto hay'adda hadda waxay la dhowr phase noqon doontaa phase-ka ugu horeeya hay'adda waxay la wareegaysaa waxay la wareegaysaa qaybta hooyada iyo dhalaanka iyo la wareegaysaa hadda umulisa loo sameeyaa qaliimada u baahan si lacag la'aan lagu sameeyaa daaweyn lacag la'aan la siiyaa waa hooyada iyo dhalaanka waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala bisha soo socoto bilowgeeda in dhaqaatiir kale noo imaadaan qaliimada ay nuuc burooyinka eernooyinka hooyooyinka isku furmay oo kaadida iyo saxarada aan cisho karin laftirkooda in qaliimo loo sameeyo Ciise Maxamuud Guure gudoomiyaha degmada Daynile oo isna kulanka ka hadlay ayaa ugu mahad celiyay maamulka isbitaalka Daynile sida ugu adeegayo bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkaan mahad iyo bogaadin uga soo jeediyo boorka isbitaalka degmada Daynile iyagu u dhabar adeegay intii ay ka maqneed hay'addii MSF ee halka sana aheed iyagu soo gaarsiiyay intaan isbitaalkan iyagoo xafiday agabkiisa iyagoo maxaa la yiraahdaa kaalmadii oo bulshada u haajiray oo firiiga aheed isku dayay inay jeebkooda ka socodsiiyaan amba dad kale ay uga soo qaadaan contribution intaas gacanta ku hayo waxaan rabaa inaan mahad iyo bogaadin u soo jeediyo mudane Maxamed Aadan Guuleed Caanageel gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda oo ugu dambeyntii kulankaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay hay'adda lagu wareejiyay maamulka isbitaalkaas in ay ka shaqeyso horumarinta isbitaalka Daynile maada kuwad waxaan jeedinayaa hay'adda baag waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaalidu mahmaahay leedahay la yiraahdo dayr xun hadii la dago dadka waxa ugu fiican qofka nafta iyo gobonimada soo cidajiya aniga anoo wariyaa ayaan muddo dalkan joogay waxaan marqaati kacaya oo Soomaalidana dhageysanayso oo dhan uga marqaati kacaya in degmadan maamulkan Daynile iyo degmadaniba ay iyadoo aan ajaanibta cid marti gali kartaan la arag ay MSF marti galiyeen kuna guuleysteen marka waxaan leeyahay maamul gobol waa idin diyaar